caqabado waaweyn ayaa horyaala ra'iisul wasaaraha la soo magacaabay 15kii bishan aynu ku guda jirno marka la horgeeyo baarlamaanka lana ansixiyo. Haddaba maxay yihiin caqabadahaasi horyaala ra'iisul wasaaraha cusub? daawada soo dhawow muuqaalkeena ayaan idinkula wadaagi doonaa. follow the page-ka sidoo kale like garee siina share garee. waa ku mahadcelinaynaa. Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuu fahamsan yahay in magacaabistiisa ay wax badan u dhibtay. Xamse wuxuu fahamsan yahay in magacaabistiisa kadib ay wax badan qoonsadeen xubnihii codadka siiyay Xasan Sheekh Maxamuud wareegii labaad iyo midkii saddexaad ee doorashada, maadaama uu isaga markii horeba ka tirsanaa kooxda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. kooxihii kala duwanaa ee sugaya kursiga ra'iisul wasaaraha hadda uma caafimaad qabaan siday ahaayeen magacaabistii Xamse ka hor. inuu kooxdaas mudnaan siiyo oo uu xukuumadda ka dhigo mid midnimo siyaasadeed abuurta oo dib isugu soo celin karta saamilayda siyaasadda waa xujo hortaala ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Xamse wuxuu la shaqayn doonaa baarlamaan aysan kooxdiisa xildhibaano badan ku lahayn, taas oo isaga iyo saaxiibadiis ay ka dharagsan yihiin. musharaxiin kale, xisbiyo iyo kooxdii madaxweyne Farmaajo ayaa xildhibaano ku haysta golaha shacabka. waxaa jirta aragti durba la abuuray oo ah in xukuumadda laga ilaaliyo xildhibaanada. haddii ay taasi dhacdo iyadoo kooxdiisana aysan markii horeba xildhibaano badan oo rasmiya golaha ku lahayn, wuxuu ra'iisul wasaaraha la kulmi doonaa caqabado waaweyn. xujooyinka horyaalla waxaa ka mid ah sidii uu golaha shacabka uga dhex yeelan lahaa xildhibaano badan oo daacad u ah, kuwaas oo u sahli kara inay golaha mariyaan qorshayaasha xukuumaddiisa kana badbaadin kara ugaarsi uga yimaada baarlamaanka dhexdiisa. sidoo kale qodobada caqabada ku noqon doona waxaa ka mid ah dowladda federaalka ayaa wax shaqo aan ka qaban dalka labadii sano ee lasoo dhaafay, iyadoo Farmaajo Rooble uu waqtigu kaga dhammaaday dagaal iyo sharciyo qoran oo laga boodo. waxaa joogsaday mashaariicdii socotay, waxaana yaraaday gargaarkii beesha caalamka. dalka waxaa ka dilaacay abaaro. xafiisyo badan oo dowladeed ayaa u xirmay khilaafkii madaxda sare, waxaana dhaawac weyn soo gaaray wada shaqayntii hay'adaha dowladda, ciidanka iyo beesha caalamka. dib u xasilin shaqo ayaa ka mid ah waxyaabaha sida degdega ah looga sugayo ra'iisul wasaaraha cusub. muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa xoogaystay awoodaha isku milan ee dowladda, taasoo dhaawacday shaqada iyo isla xisaabtanka. madaxweynayaasha waxay isku dayaan inay ku milmaan shaqada xukuumadda, xukuumadahuna waxay isku dayaan inay farageliyaan shaqada hay-adda sharci dejinta. dhaqankan wax horumar ah kuma siyaadin dalka iyo dowladnimada. ra'iisul wasaare Xamse waxaa la eegayaa haddii uu karo inuusan awoodiisa siinin cid kale iyo inuusan faraha la gelin awoodaha waaxda sharci dejinta. dalku wuxuu ku jiraa xilli adag amni ahaan. caasimadda weli ciidamada dowladda waxay sii wadaan dilalka shacabka. Al-shabaab ayaa iyaguna sidoo kale wada dilal iyo weeraro ay ka fulinayaan gobolada dalka. baahi weyn oo amni ayaa ka jirta magaalada Muqdisho iyo gobolada ku hareeraysan. ra'iisul wasaaraha cusub waxaa hortaala inuu la yimaado aragti amni iyo xukuumad la fulin karta. Al-shabaab ayaa ah awood jirta, wada hadal iyo awood ciidan midii lagu xalin lahaaba waa xaqiiqo hortaala ra'iisul wasaaraha cusub oo uga baahan maareyn. wakiilada caalamiga ah ayaa si weyn uga niyad xumaaday dowladda iyo dhaqanka madaxda Soomaalida labadii sano ee u dambeysay. waxay ku dhawaadeen inay dalka ka quustaan. dhaqaale badan ayay hakiyeen markii ay xaaladda arkeen. weli waxaa la sheegayaa inay ku jiraan qiimeyn. ra'iisul wasaare Xamse waxaa hortaala inuu dib u furfuro wakiilada beesha caalamka oo uu kalsooni geliyo si ay mar kale ugu dhiiradaan wada shaqayn hagar la'aana. sidoo kale qodobada horyaala ra'iisul wasaaraha waxaa ka mid ah meelaha lacagaha ugu badan lagu cuno ee iska furan waqtiga dheer. waxaa ka mid ah dhammaystirka dastuurka iyo dib u heshiisiinta. wax horumar lagama samayn shaqooyinkan. sidoo kale dowladdii dhowaan waqtigu ka dhammaaday ayaan qodobo badan ka horumarin halkaas. wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland ayaa iyaguna noqday mashruuc iska taagan. afartan arrimood waxay ka mid yihiin shaqooyinka ugu muhiimsan ee dalka, balse aan badi mudnaanta la siinin. waa imtixaan ay badi ku dhaceen xukuumadihii dalka soo maray. Xamse waxyaabaha lagu qiimeyn doono waxaa ka mid ah miisaanka shaqada uu ka qabto dib u heshiisiinta, wadahadallada Somaliland, dhammaystirka dastuurka iyo horumarinta doorashooyinka. siyaasadda arrimaha dibadda ayaa iyaduna ka mid ah qodobada horyaala. gobolka Geeska Afrika waxaa ka jira loolan kala riixasho iyo weliba isxulufaysi dhinac walba oo ay Soomaaliya u dhaqaaqdo
saameynteeda ayay leedahay. Nidaamkii madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa waxaysan lahayn wada shaqayn fiican dowladaha ay ka mid yihiin Djibouti iyo Kenya, isagoo qaatay Itoobiya, sidoo kalena Eritrea saaxiib la ahaa. In sidii madaxweyne Farmaajo qaar la tuuro qaarna lala shaqaysto ma caawin karto baa la leeyahay Soomaaliyada laga filayo inay dhisaan Xamse iyo Xasan Sheekh. Dalalka Carabta sida loola macaamili doono iyaduna waa xujo kale, gaar ahaan dowladda Qatar. Siyaasad aan xasiloonayn oo arrimo dibadda ah ayuu dalku muddo ku soo jiray. Xukuumadda imaan doonta caqabadaha horyaalla ayay ka mid tahay siday u abuurto siyaasad arrimo dibadeed oo bilaa cadaawada oo danna ugu jirto dalkeena Soomaaliya. Haddaba intaasoo dhan ma ka gudbi doona Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre mise sidii xukuumadihii ka horreeyay ayuu ku fashilmi doonaa? Daawada wixii fikirkaaga hoos nagula wadaag, waana kuu mahadcelinaynaa. mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal, waa sabti axad soo gelayso 18 bisha Juun sanadka 2022. waxaa noo waramaya Axmed Maxamed Ibraahim. waasanad xuseen cabdulle maxamed. bismillaahi raxmaani raxiim. dhegeystayaal ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan. maamulka deegaanka Baaxdo ee gobolka Galgaduud iyo saraakiisha ciidamada dowladda ayaa maanta deegaankaas ku soo bandhigay meedadka dagaalamayaasha Al-Shabaab ee shalay weeraray deegaanka Baaxdo. dhanka kale dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa odayaal dhaqan ka afduubtay deegaan hoos yimaada degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud. Xasan Axmed Maxamed ayaa soo waramay. maamulka degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud iyo saraakiisha ciidamada ammaanka dowladda federaalka ee kuwa Galmudug ayaa maanta meel fagaara ku taala gudaha degmada Baxdo ku soo bandhigay meedadka xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab looga dilay dagaalka ay ku qaadeen degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud. sanad ciidan oo looga furtay dagaalka iyo maxaabiis nool. saraakiisha ciidamada ayaa warbaahinta u sheegay in la tiriyay meedadka 70 dagaalamo, waxaana ragga la dilay ku jira xubnaha ajaanib sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada ammaanka. waxaa sidoo kale nolosha lagu qabtay oo maanta fagaraha Baxdo lagu soo bandhigay qofkii wadagaari qarax lagu soo raray oo lagu qabtay gudaha degmada Baxdo. taliye ku-xigeenka ilaalada madaxtooyada Galmudug Xidig Afkala Haye ayaa warbaahinta u sheegay in weerarka ay soo qaadeen xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab looga dilay in ka badan 67 xubnood, isla markaasna nolosha ay ku qabteen xubno kale. meeshaan u jeedaan waa magaalada Baxdo, degmada Baxdo bartamaheeda. waxaa dhabarkayga yaala qawaarishtii Al-Shabaab mayd ka badan 67 oo hordhaca qaybo kale ka badan. waxa laga sheegayaa dhulka ka baxsan magaalada. ilaahay baa mahad iska leh. waxaa meeshaas u jeedaan ku dhigay waa ciidamada mujaahidiinta ee Baxdo, ciidamada danab, daraawiishta, ciidanka Galmudug iyo wix la mid ah, iyo biliiska dhammaan, iyo mujaahidiinta oo ka kala timid meelo badan. dadku sida isku xiran yihiin uga qayb qaatay oo badan culummo. ilaahay baa ku mahadsan, waa la soo afjaray dadkii qawaarishta ah ee dadka shacabka waddanka deganaa jiray dhibaatayn jiray ee bannaystay maalkooda iyo dhiiggooda iyo hantidoodaba. waxaan ku soo afjarahayaa hadalkay ku soo gabagabaynayaa ilaahay baa mahad iskale noo suuro geliyey inaan wixii meeshaas soo aadaan ku soo afjaro. gudoomiyaha degmada Baxdo Maxamed Cabdulaahi Muuse ayaa isna sheegay inay iska difaaceen weerarkii khasaare weyn ay gaarsiiyeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. dhammaan ciidamada ammaanka dowladda federaalka ee kuwa Galmudug iyo culimada deegaanka ay ugu baaqay inay mudoobaan ka hortagida wax kasta oo ammaanka degmada wax u dhimi kara. bismillaahi raxmaani raxiim. alxamdulillahi rabbil caalamiin. waxaan ku sugannahay waa degmada Baxdo gudaheeda oo ay saakay weerar ku soo qaadeen kooxda khawaarijta nabaddiidka gumaadka ummadda Soomaaliyeed ee u taagan inay dhiigga muslimka saacad walba bannaystaan oo daadiyaan. saaka aroortii salaad subaxii ayay weerar ku soo qaadeen degmada Baxdo. ilaahay fadligiisa alxamdulillaah, ilaahay garabkoodu ka baxay. guusha iyo khalabadan wuxuu siiyey reer Baxdo, ciidan iyo shacabba oo ku sugan. hadda sidaad u jeedaan waxaa yaalla meesha aanu joogno mayd ka badan 67 ka badan. baadiyaheedan hadda weli waa laga soo sheegayaa oo hadda xilligan baabuur baa ku maqan oo ku doontay. meeshaas maydka la soo dhoobay waxaa ka mid ah ajaanib. 3 nin boo ajanabiga ku jirta. wax ka yaalla Soomaaliya ma jiraan, wax ka yaalla Galgaduud ma jiraan, wax ka yaalla degmada Baxdana ma jiraan. waxay intaa u soo tiriseen oo ay wadamadoodii uga yimaadeen inay dhiigga muslimka bannaystaan oo daadiyaan. laakiin ilaahay fadligiisa alxamdulillaah, ilaahay baa maaragtay jasadiisa ka waraabiyey. waxaa ilaahay qadaray saaka inuu ku baktiyo degmada Baxdo gudaheeda. sidoo kale waxaa la hayaa
maxbuus nool oo hadda muuqaalkaad ku arki doonto meesha fadhiya muuqaalkiisi aad ku arki doontaan waxaanu weydiinay ninkaas maxaad ku dagaalamaysa dadka waxaa in badan lagu nisarcaadiyaa shabaabku waa islaam waa dad diinta islaamka ku dhaqama diinta islaamkan wax ku hogaaminaa yidhaahdeen hadda haddaan been ka sheegin isaga jawaabkiisu ku hadlayaa noloshaydiiba ma tukanu yiri waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan fariin u diro guud dhanka kale dagaalamayaasha al-shabaab ayaa dhowr qof oo shacaba waxa maanta ay ka afduubteen deegaanka lagu magacaabo baaldheer kaas oo hoostaga deegaanka cadakibir ee gobolka galgaduud maamulka deegaankaas ayaa idaacaddu kulmiy u sheegay in afduubkan dadka shacabka ay daba socoto weerarka dagaalamayaasha al-shabaab ay ka geysteen gudaha degmada baxdo ee gobolka galgaduud maamulka deegaankaasi wuxuu walaac weyn uu ka muujiyey badqabka dadkaasi kuwaasuu sheegeen inaan la aqoon halka ay la aadeen dagaalamayaasha al-shabaab ayaa falalka ay ka geysanayaan deegaano ka tirsan galmudug kordhiyey tan iyo markay weerar ay ku qaadeen deegaano ka tirsan galmudug